gudoomiyaha hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed Dr. Cabdullaahi Maxamed Sirwac oo wareysi gaar ah ay la yeelatay Waaberi TV xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo kamid ahaayeen doorashada dalka haatan ka socota iyo abaaraha saameeyay dad iyo dunyada ku dhaqnayd degmooyinka gobolada dalka qaarkood. gudoomiyaha Sirwac ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ugu sareysa waxaana ugu baaqay in la soo dejiyo doorashada dalka ka dhacaysa isla markaana la soo afmeero doorashadii guud ee lagu dooran lahaa guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha cidii noqon lahayd. dhanka kale gudoomiyaha hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed Dr. Cabdullaahi Maxamed Sirwac ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha ka taagan degmooyinka gobolada dalka qaarkood taasi oo saameyn weyn ku yeelatay dad iyo dunyadii ku dhaqnaa deegaanadaasi. waxaana baaq u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan isagoo ugu baaqay in gurmad degdeg ah loo sameeyo dadkaasi abaaraha ay saameeyeen. isku soo wada duub hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed Dr. Cabdullaahi Maxamed Sirwac ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muran uu ka taagnaa meelaha qaarkood eedeymana ay ka imaanayeen qaar ka mid ah ergooyinka beelaha ee soo xuliyay xubnaha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ka mid noqonaya. sidoo kale eedeyntaasi ay ka imaanaysay musharaxiinta u tirtamaysay ka mid noqoshada aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka taasi oo ku aadanayd in gebi ahaan la musuqmaasuqay doorashadii xaqa ay u lahaayeen. doorashadii tooska ahayd ma aha qof iyo codka ahayd marka macnahaas laakiin in waxa sidaad u dhigaydo inay wada noqon doonaan anigu ma garanayo laakiin waa doorashadii oo ahayd tii odayaasha la yaqiinay odagu xildhibaanka soo magacaabayana ma aha tii qof iyo codkiisa ahaydna ma aha waa mid labadii u dhaxaysa. waxaan u malaynayaa in hadda la arko inaysan ahayn doorasho sax ah. waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay iyo xoolaha siiyay iyo kuwa Ilaahay xoog siiyay dadka in loo gurmado waxna aan laga hakran. arrintaasina waa arrin culus oo dad badan oo Soomaaliyeed oo malaayiin gaaraya ayaa dhibaatadaasi haysataa. marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa in dadkaas u gurmadaan. xasan maxamed cali xasan antena Waaberi TV magaalada Muqdisho.